waan idin salaamay saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaan sharxi doonaa filin aad iyo aad u xiiso badan kaasoo lagu magacaabo Monolight. Haddaba waa kan filinkiiya daawo oo taxadar. Filinku wuxuu ku bilaabanayaa iyadoo layna tusayo xayisiintaas ku saabsan gaari loo yaqaan Monolight. gaarigan ayaa markaa lagu abaalmariyay inuu yahay gaariga ugu amaanka badan adduunka. Intaa kadib goobtu waxayna tusaysaa iyadoo isu bedeshay in la isticmaalayo markaas gaarigaas. Gabadhan waxaa la dhahaa Sandra, waxaana la socda markaas wiilkeeda yar kaasoo lagu magacaabo David. Sandra waxay qorsheynaysaa markaas inay aado guriga sodohdeed. Dhanka kale ninkeeda uma imaan sababo la xiriira markaa shaqadiisa, halkaasoo markaa in muddo ah markaa ku maqnaa. gaariga ay wataan waa mid markaas casriyeysan oo xitaa go'aamin kara miisaanka rakaab kasta oo saaran. intii lagu guda jiray safarkaas dheer, Sandra waxay isku dayday markaas inay wacdo ninkeeda, waxayna markaas degan tahay hotel markaas u dhow madaarka uu ka shaqeeyo. Mana cadda sababta markaas uu ugu imaan waayay muddo bil ah, laakiin Sandra waxay kaliya markaas og tahay ninkeedu inuu ku mashquulsan yahay markaas shaqadaas. Waxayna bilowday markaas safarkeedii, wiilkeeda yarna waxay markaa ku mashquulinaysay telefoonkeeda. sheeko dheer kadib, Sandra ayaa markaa timid mid ka mid ah kaalmaha shidaalka, taasoo ku taala markaas suuq yar. waxayna David ka bedeshay xafaayadii mid ka mid ah musqulaha markaa ku yaalay suuqa yar. intaa kadib waxay David markaa u soo iibisay cunto fudud. si lama filaana waxaa jira markaa shisheeye u eg markaa inuu doonayo inuu jabsado gaariga Sandra, laakiin Sandra si fudud ayay markaa uga gudubtay xaaladda iyadoo markaa si fudud isticmaalaysa telefoonkeeda gacanta. halkaa kuma aysan joogsan, xitaa ma aysan dareemin in David agteeda joogo, waayo waxay ku mashquulsanayd markaa ilaalinta gaarigeeda. meel walba ayay eegtay ilaa ay ka shakiday markaa in qofka shisheeyaha uu ilmaheeda qaatay. Sandra way argagaxday markaas, laakiin waxaa soo baxday in ilmaheeda uu la socdo markaa saddexda hablood ee taagan musqusha horteeda. iyadoo aan rabin inay dhibsadaan saddexdan hablood, Sandra waxay isla markiiba fuushay oo kaxaysay gaarigeedii iyadoo adeegsanaysa habka fall mode. habkani wuxuu ka ilaalin doonaa rakaabka dhammaan noocyada khataraha ah iyo dhibaatooyinka markaa ka jira dibadda baabuurka. markii ay baxeen ayay sii socdeen guriga sodohdeed oo fogaa awgeed. si markaa caajiska ay uga baxda Sandra waxay markaa wacday saaxiibteedii yaraanteed, taasoo markaa ka soo baxday hodheel markaa u dhow garoonka. waxaa kaloo ka sii yaab badan, Sandra waxay dareentay markaas in saaxiibteed uu la joogo markaa saaxiibkeed. si kale haddii loo dhigo, Sandra ninkeedu wuxuu xiriir la yeeshay markaa saaxiibteed. Sandra aad bay u niyad jabtay markay timid guriga sodohdeed, xitaa ma aysan lahayn wax niyada oo ay gudaha ku gasho. dhanka kale ninkeedu uu ka qaban waayay telefoonka, isagoo markaa iska dhigaya inuu mashquulsan yahay. waxayna go'aansatay inay aado isaga oo ay ku ogeyd markaas dhankaas iyo garoonka diyaaradaha. masaafada uu u jirana maaha mid kaftana, waxaana weeye 320 mayl ayay markaa ka fog tahay magaalada. Lilith oo ah mid markaa caqli badan, waxay ku wargelinaysaa Sandra in markaa waddada ay ka jirto shil halisa. There's an accident on the freeway. Delays to be expected. sidaa darteed Lilith waxay markaa u soo jeedinaysaa inay qaadaan wadda markaa ka baxsan waddadan intii ay sugi lahaayeen waddadani markaas intay furmayso. ugu dambeyntii Sandra waxay martay markaas waddadaas, inkastoo xaqiiqdu ay tahay inay dhif tahay markaa dadka isticmaala. waxayna noqotay habeen, mana aragto wax deegaan ah, waxaan ka ahayn qayb markaa korontada oo ku taalay meesha meel ka baxsan. hadda Sandra aad bay u walwalsan tahay, waxayna naxday markii ay jiidhay deero taasoo markaa waddada ka gudbaysay. isla markiiba dibadda ayay u soo baxday si ay u hubiso xaaladda deerada, waxayna kaga tagtay ilmaheedii keligiis baabuurka dhexdiisa. xaaladdan marka lagu jiro, cunug yara ayaa taabanaya markaas application kaasoo ahaa mid markaa gaariga lagu maamulo. iyadoo aan ogaanin Sandra, David wuxuu bilaabay markaas inuu dhaqaajiyo habkii fall mode, kaasoo aan wada ognahay in habkani markaa ka ilaalin doono rakaabka dhammaan noocyada khataraha iyo dhibaatooyinka ka jira markaa baabuurka dibaddiisa. ugu dambeyntiina wiilkii yaraa waxaa ku xirmay markaas gaarigii. hagaag, Sandra markaa hadda wax badan ma samayn karto maadaama David uu yar yahay, uusanna waxba fahmaynin. si kastoo markaa ay wax ugu sheegtana ama ay ugu qayliso, David maaha mid haba yaraatee fahmaya. iyaduna awood kale markaas ma lahan in markaa ay qayliso maahaane, si la mida ay gaarigana garaacdo. nasiib darro, David ayaa markaas naxay, wuxuuna sameeyey in markaas uu tuuro telefoonkeedii. ma qiyaasi kartid xaaladdan. isla markiiba waxaa soo wajahday dhibaato weyn hooyadan, maadaama cunugeediina uu gaari kaga xirmay. lamida waxaa ugu sii darsamay cidlada markaa ay joogto iyo wiilkeedii oo gaarigu markaa ku xirmay. mana awoodo markaas inay ka furto gaariga. waxaana arkaynaa markaa iyadoo isku dayday inay jebiso markaa muraayadda. markay awoodi weyday inay jebiso, waxay u dhaqaaqday jihada ka horreysa si bal markaa ay u soo fiiriso xaaladaha markaa saldhigan korontada. wax badanna markaa kama aysan filaynin sababtoo ah meeshan qofna ma joogo, laakiin nasiib wanaag waxay heshay markaa qalab waxtar u leh sida toosh iyo bir ay isleedahay markaa aad ku jebisid gaariga. si lama filaana markii ay ku dhowdahay markaas inay ka baxdo saldhigga, waxay ogaatay
markaas in wax daba socdaan wuxuuna ahaa markaa xayawaan duurjoog ah oo isku dayay markaas in waxyeello u geysta iyada si kastaba ha ahaatee waxay gaadhay markaa gaadhigii badbaadada gaadhiguna aad bay u fiicnayd habeenkaas waxayna seexatay markaas gaadhiga dhakadiisa maalinimadii ayaa la gaaray Sander waxay ka kacday markaa hurdada dabadeed waxay ogaatay markaa in xaaladda David ay xun tahay kulaylka qoraxda ayaa markaa sidoo kale sii kululaanaya isagoo sheegaya adeeg markaa ku xiran gaariga in heerkulku markaa sii kordhayo waqti ka waqti runtii aad bay u xun tahay xaaladoodu wadadan ay joogaanna hal gaari markaa ma soo marayo Sandra ma aysan haysan markaa wax kale oo ay samayso ilaa ay go'aansatay markaas inay socoto iyadoo raacaysa markaa jihada wadada inkastoo aysan weligeed meeshan marin waxaana kaloo kasii daran inay baxdo markaa cunugeeda oo gaariga kulul ku jira waxay socodkeeda sii wadaba way daashay laakiin ma aysan joojin inay sii wado socodkeeda nasiib wanaag waxay si lama filaana u heshay webi kaasoo ku yaala markaa meesha ay maraysay way ka cabtay sidoo kalena way ku maydhatay wayna soo baxday waxayna soo martay 10 kiiloomitir iyadoo kasoo leexanaysa markaa wadadaas dheer si markaa ay u hesho caawimaad ugu dambeyntii waxay aragtay markaas garoon diyaaradeed oo hore waxayna ku aragtay markaa diyaarad meesha taalay dhanka kale heerkulka markaa gudaha gaarigu aad ayuu markaa usii kululaanayaa marba marka kasii dambaysa Sandrana waxay usii socotay markaas dhankaas iyo diyaaradda inkastoo aysan cidina joogin markaa garoonka kadib waxay ka heshay markaa diyaaradda dhexdeeda galoon kaasoo ka mid ah markaa noocyada fudud iyo cabitaan sidoo kale 2 taayir oo markaa diyaaradeed waxayna isla markiiba dab qabadsiisay labadii taayir si uu u samaysmo markaa qiiq dheer oo laga yaabo markaa in qof dareemo oo xaggeeda soo aado laakiin ma aysan dhicin taas kadib waxay soo qaadatay markaa galoonkii waxayna soo martay webigii oo ay ka soo dhaansatay markaa biyo si markaa ay ugu qaado baabuurkeedii markii ay gaartay baabuurkii David wuxuu markaa u muuqdaa mid suuxsan wejigiisuna wuu casaaday Sandra waxay rajeynaysaa in haddii dusha sare ee gaariga ay ku shubto biyaha uu qaboobi doono markaa gaarigu intaas waxa dheer way sii waday markaas iyadoo ku garaacaysa markaa gaariga birtii markaa ay ka soo qaadatay diyaaradda dhexdeeda dabcan wax natiijo ama aysan arag ilaa haddadaas waxayna u malaynaysaa in ilmaheeda aan la badbaadin karin oo uu ku dhintay markaa baabuurkan si kastaba ha ahaatee malaheedu ma ahayn markaa mid saxa oo David wuxuu markaa muujiyay dhaqaaq yar kaasoo dhaqaajinaya markaa farihiisa iyadoo xaalku sidaa yahay waxaa markaa ku soo orday kaayood kaasoo markaa daba socday habeenkii iyadoo hadda markaa kama baqayso in markaa uu qaniino kaayoodkani maadaama ay rabto inay la joogto markaa ilmaheeda kaayoodkan wuxuu markaa u yimid in markaa uu cuno meydkii deerada dhanka kale gaarigii Sandra ayaa markaa dib u socday nasiib wanaag waxaa jiray markaa gobol yar oo dhagaxa kaasoo joojiyay markaa gaariga dhaqaaqiisa halka markay xaaladdu marayso Sandra waxay keentay markaa fikrad kama dambaysa inkastoo fikradani guul iyo guul darraba ay tahay markaa 50-50 calaashaan inay ku guuleysatana ay dhici karto inay ku guul daraysatana markaa ay dhici karto isla markiiba waxay burburisay dhagixii hoos yaalay taayirka baabuurkeeda iyadoo adeegsanaysa markaa bir kadib markii ay ku guuleysatay si ula kacay markaa baabuurkeedii ugu riixday togan markaa dambeeya iyadoo og markaa in cunugeedu markaa ku jiro gaariga dhexdiisa wax badan kuma qaadan kadib markuu gaarigii ku dhacay gunta hoose markaa toga isla markiiba waxay u daadegtay hoos si markaa ugu dhawaatay ilmaheeda ku jira markaa gaariga dhexdiisa waxaana soo baxday sida aan aragno in fikraddii Sandra aysan ahayn markaa fikrad khaldan sababtoo gaarigii ayaa markaa si toos ah isu furay markii uu dhulka ku dhacay iyadoo aan waqti ka lumin Sandra ayaa caawisay markaa isla markiiba wiilkeedii iyadoo markaa ka siibtay jaakadii uu watay oo qaboojinaysa jirkiisa si kastaba ha ahaatee Sandra waxay awoodaa markaa inay wado mar kale gaariga isla markaa Sandra waxay rajeynaysaa in tiknoolajiyada gaarigu ay ka caawin doonto markaas koridda markaa xagga sare hagaag dib weyn kuma ahayn gaariga si la yaab leh ay markaa u awooday inay dib markaa ugu noqoto xagga sare dabadeed waxay soo qaaday markaa wadadii ay ka timid dhamaadka filimka Sandra iyo David waxay yimaadeen markaa cisbitaalka nasiib wanaag David noloshiisii waa la badbaadiyay si lamida waqtigan ayaa noqon doona markaa waqtiga ugu xun Sandra nolosheeda filimkiina saas ayuu markaa ku dhamaaday haddii markaad xiisaysid muuqaalada noocan oo kala ah fadlan channelka subscribe saaro si lamida muuqaalkan like saar si markaa dad badan uu u gaaro waana kaaga mahadcelinayaa daawashadaada muuqaalkan intaan muuqaalka xiga markaa ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته